magacaygu waa Fartuun Maxamed Xuseen waxaan ahay Bester Chef shirkadda Fan Bakery maanta waxay ku talgashay in idin la wadaagto macmacaan aad u fudud adduunkana trending ka ah magaciisa waxaa la yiraahdaa caramel pudding with chocolate cake shirkadda Fan Bakery waxay samaysaa macmacaan kala duwan macmacaanadaas oo aad ka helayso dhammaan xarumaha Xayaat Market maadaama ay ugu soo food leedahay maalmihii munaasabadaha ciida ah waan isla arki doonaa waxyaalaha aan ka sameyn doono iyo inta ku kooban yahay halkan waxaan ku haysanaa sokor halkan waxaan ku haysanaa miisaan anagoon aan ka bilaabi doono stepkeeni koowaad kaas oo ah caramelizing sugar mar walba waxaan adeegsan doonaa miisaan shay walba aan sameynayno waxa uu isticmaali doonaa gram ahaan halkan hadda waxaan ku haysanaa sokorteen waxa waaye 240 gram waxaan kaloo gadaal ugu dari doonaa 80 gram oo hot water hadda waxaa dabka soo saaranay sokortii waxa sugeynaa ilaa ay ka noqonayso caramelizing ay ka soo gaduunayso sokorta hadaada walaaqin geesaha ay kaaga dhigi doontaa guwanay hal meel haday taagnaato waxaa rabaa marka inaad isku mix gareyso sokorteeni saas u soo gaduutay ayada dhan waxay noqotay caramelizing waa sida anaga ka rabnay haddana waxaan ku dareynaa biyaheeni nooc cabirnaa biyaha waxaa soo cabirnay saa hore idinku sheegnay wax walba waxaa isticmaali doonaa gram biyaheeni waa 80 gram marka haddana biyaha ku darsaneynaa fiican oo walaaqaysaa ilaa ay ka dhalaasho sokortu way isqabsanee saasay u adkaanaysaa waxaa laga rabaa inta ay ka dhalaalayso inaad si fiican u walaaqdo sidaasay noogu soo baxday caramel sauce waa kana soo diyaarinay hadda waxaan ku shubaynaa sokorteeni qiyaas waxa u gudubnay stepkeeni labaad waxa soo sameysanay kareemkeeni sauce-ka ahaa shay walba waxa isticmaali doona sawirrin kugu sheegay garaamaad caanaha xilwa aan ka bilaabeynaa caanaha xilwa ayaa isticmaalnay garaamkiisana waxa waaye 175 gram waxa kaloo isticmaalnay condensed milk waxa waaye 197 gram aan ka isticmaalay waxaan kaloo isticmaalay cream cheese waxaan ka isticmaalay 75 gram waxa kaloo isticmaalnay ukun oo laba xabe waxa kaloo isticmaalnay vanilla powder oo hadaad haysan waxa isticmaali kartaa vanillada syrupka sooskeena meeshan ku shubaneynaa marka aad isticmaalaysid hal weel oo go'an hal mar ku soo kartaa maadaama aan isticmaalayo weelashan yarka inaan qiyaas ugu shubto waaye hadarta waxa isticmaali kartaa dhamaan garaan oo ku shubo kartaa soo marka insha Allah wada qiyaasan doonaa waa kana saxankeena waa soo diyaarsanay halkan waxaan ugu jira alaabtii waxa ku soo daboolnay aluminium waxaan si dhigi doonaa saxan noogu jiro foornada biyo kulul soo horeyn kugu sheegay digriga ay ku dubi doonto waxa waaye 170 saacada ku duri doonto foornada waxa 1 hour waxa u gudbeynaa step 3gi waxa sameysanaynaa sponge cake ama cake chocolate ka ahay oo caramel cake korka laga saari lahaa halka waxa noogu jirto sokor oo 90 gram waxaan ku dari doonaa 3 xabo oo ukun waxaan u qaadan doonaa mixerka marka soo mixin gareeno sokortii ukunta saddex gasho aan isku soo laaban doonaa burkii kakaawa waxa uu dareynaa tartiib ukuntii wixii aan soo qasanay waxa uu dari doonaa tartiib si tartiib oo mixin gareene waa isku dhex gelinay isku mixin gareene burkii ukuntii oo qasnaa oo diyaarsanaa ilaa iska dhex galaan caramel cake-geeni waa soo baxsanay oo ovenka noogu jiray waa kaya dareeri hadaada uu soo dhagay marka waxa sameeynaa step 3 oo gudbeena cake aad diyaarsanay akorku u shubeena mar labaad ayaan xawili doonaa hadana ovenka si tartiib ah ugu shubaneena cake-geeni oo qiyaas oo qurux badan ma sha Allah soo dhamaysan kulli oo soo shubane mar labaad waxa gali doonaa foornada 15 daqiiqo kadib insha Allah waxa isla arki doonaa sidoo ku soo baxo hadda waa kaya cake-geeni oo noo soo baxay marka waa gidinaynaa waxaan saarki doonaa sidoo ku soo baxay waa u jeedin caramel pudding with chocolate cake sidoo quruxda badan oo noogu soo baxay kaalis kaarad ma sha Allah dhadhankiisana haba sheeginbo marka hadda waxa ku diikoor gareynaa fresh fruit so any fruit ah haysta ku diikoor gareysa kartaa sidaas quruxda badan oo ku soo baxay caramel cake pudding with chocolate cake aad u qurux badan haddii aad ka gaari weysid inaad samaysatid waxa ku diyaarisay shirkadda Fan Bakery
waxaana ka helaysaa dhammaan xarumaha Xayaat Market